aan barnaamij gaar ah halkan horta igu soo gudbiyo kuna saabsan siyaasadda iyo mandaqada geeska gaar ahaan dalka Soomaaliland waxa haatan noogu jira xildhibaan Xuseen Ciige oo isagoo kamid ah baarlamaanka dalka Soomaaliland gaar ahaan isagoo 2 toddobaad ugu dambeeyay ku sugan dalka Canada gaar ahaan magaaladan Ottawa ku soo dhawow Xuseen Ciige ee idaacadda CKCU laanta afka Soomaaliga ee idaacaddan Ottawa wandhow hada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa idaacaddan oo halkan ugu casumtay waxay Soomaaliland degan ama Soomaaliya degan Ottawa iyo intii ay gaaraysan waan salaamayaa وهاجك وان كاقادني حسين waxa aad ka timid dalkii Soomaaliland bal inta aanan gudan galin waraysiyeena kala guud ahaan nooga waran xaaladii dalkii nabadgelyo caafimaad iyo horumar ka jira dalkaas oo ka imika sokaysay ugu yaraan 2 toddobaad dalkii Soomaaliland maanta maalin ka wanaagsanaa ma soo marin aad iyo aad buu wanaagsan yahay roobkana wuu daay abaarihii ilaahay wuu ka saaray meel yar mooyaane meelihiina waa laga guuri karaa meelo u dhow roob ka dacay marka isaga abaartu way socotay xagga nabadda aad iyo aad bay nabad u tahay weligay intaan noolaa ma arag meel ankaas oo kale nabad u ah qiyaastii iyada oo dadku isagoo isku filan yahay oo badanaba nabadiisa ilaashado aad iyo aad bay nabaddu u jirtaa waxa xaqiiqa haddii aan runta ka sheego Soomaaliland inay ka ammaansan tahay dhulkii matalan Ottawa kale ama Canada oo kale haddii ay goordama habeenkii noqoto la yara baqbaqaa xagga habeen barka dumarku keligood iyo rag la socon bay socdaan wax laga baqaana ma jiraan aad iyo aad bay nabad u tahay sidaas ayaan kaga warramayaa wixii kale lagu daray roodigu weydiin wax waa sax marka ka sokow baarlamaanka hadda ma fasax buu ku jiraa oo aad runtii qaadateen mise wali shaqadii baarlamaanka way socotaa ma rabadaan fasax baan nahay bishan rabadaan inkastoo gudiyadii ay hawlihii loo diray ay laga rabo inay diyaariyaan oo dee gudiyo 8 gudi baa jiro 8 qof ah oo dee maartay oo shadow government-ka ah xeerar baa loo qaybiyaa inta ay ama fasaxayeen ama habeenkii ama galabtii ay diyaariyaan si looga doodo marka dambe sessionka dambe baarlamaanka la furi doono marka kuwaasna badankood diyaar baa ay naga ahaayeen wixii annaka ugu soo xigsanay gudideeda marka rabadaan soo dhamaato iyo iidu laba casho ka bacdi oo la furayo baarlamaanka insha Allah haddii ay yiraahdo wahagaag Xuseen marka aan u soo noqono dhinaca siyaasadda Soomaaliland haatan waxa sideen la socono aad kamid ahayd xildhibaanadii sida ulul uga diiday markii dekada Berbera runtii la wareejinayay iyo bayskaba marka arintaasi uma ay joojin oo dhigna uma dhigin xukuumaddu walow iyagu ay tilmaameen in runtii xildhibaanadii majority-ga ahaa iyo mucaaradku ay u codeeyeen oo runtii ay saa ku martay sidaan lagu aqbalay balse ininku aad ka diideen wali ma sidii aad kaga qanacdeen oo imika aad ku raacdeen in waxa imika horumarka socda mise wali sidoo kaga soo jeedaan waxa leeyahay wali wax cad ma hayno ilaa wax cad aanu helno oo dadkii soo doortay aanu u baahino ama annagu siyaasad ahaan waxa weeye waxaanu nahay haddaan baarlamaanka nahay siyaasadda Soomaaliland cidda curisa ama cidda samaysa ama cidda ka shaqeysa ee wixii dawladdu ku shaqeynaysa sharciga soo saartaanu nahay marka sirtu waa halkay ka soo abuurantaa ma halka laga qarsado marka ilaa iminka waxa Allah iyo waxa diiwaan waxaan kaga talagalno heshiiskaas wuxuu ahaa hadduu jiraba ma hayno sharci uma hayno oranaya heshiiskaas uu nabad galo waa sharci mar haddii aan baarlamaanka la soo hordhigin oo wixii lagu heshiiyay qodobadii aanay meesha oolin oo wixii faa'iido oo dalka taasaa muhiimadeedu ay tahay meesha aanu ku oolin waxaan qabnaa halkii mar inagu ka taaganay sababtoo ah ma aha dalka horumarkiisa diidi maayo shuruucdana wixii ay samayso diidi maayo aanu ka midnay anaku mana diidayo in wixii dan u dalka haddii bis la bixinayo haddii dekad la bixinayo haddii dan u tahay ma diidani iyo rag ila socdaan la mid ahayba laakiin wixii waxa qarsoon oo aan muuqan ayaanu diidanahay oo u muuqda inay tahay inaanay sax ahayn
waa hagaag markaa wixii haddii ayna muuqan ma isku daydeen inaad xukuumadoo kale aad la hadashaan intaad guddi u dirtaan oo tirahdaan bal waxaan soo bandhiga bulshada ahan u bayaamine golaha markii aan isugu nimid labada gole la isugu yeedhay madaxweynuhu noo yimi ee noo khudbeeyey ee la yidhaha loo codeeyo arrintan iyada ah wixii aanu dawladda ku odhan lahayn halkaasaanu ka muujinay meesha lafteedii baanu ku diidnay waxaanu yidhi waxaan u codayna nasoo hordhiga wixii ka dhacay waa ogeydeen ma aha anigu runtii ma aha inaan halkan aan u muuqdo nin mucaarada mar haddaan qurbaha joogan maxaafada weynan ahaadaado dawladda ka wakiila hase ahaatee mar haddaad wax iga weydiisay wixii jira uma sheegaya been ka sheegi maayo dawladda haado waa markii dambe loo teg oo loo sheeg waxyaaba badan ay ku sheegeen waa nuxur iyo waxbay sheegayeen nuxurku waa inuu nuxurku hadduu nuxur yahay ama ay tahay tahay heshiisku wax dee aan dhamaystirnayn wixii uun markaa dhamaystiran laga heshiiyey waa in meesha lasoo dhigaa oo baarlamaanku uu eegaa oo ama wax ku daraa ama wax ka dhimaa ama hadduu doono laalaaba okay waa hagaag waa si wanaagsan haddii bal xuseen oo lafteeda aan eegno dhinaca Soomaaliya oo kale sida aad idinku baarlamaanka qaybiga mid ay u diidan yihiin ayaa dalka Soomaaliya la isku dayay baarlamaankeeda in runtii food iyo cod loo qaado si looga soo horjeesto bayska military dalka Soomaaliya haata laga wankayo arrintaas ay kula eeg tahay dalka Soomaaliya in baarlamaankeedu ka doodo Somaliland iyo Soomaaliya la kala yiraahdaa wax allaale iyo waxa duwala wax naga dhaxeeya ma jiraan waa aragtinimo ahayn iyo daris wanaag haddii ay doonayaan iyagu inay wax qasaan qasid umaan u arkaaye dee way waxa doonan bay ku hadlayaan laakiin Soomaaliya halka maanta Somaliland marayso ma ay gaadhin mana u dhowaa 20 sanadood 50 sanadood ku qaranaysa sida muuqata ragga hadlaya ka hadlaya ee baarlamaan baan nahay horta baarlamaanu maxaa tahay baarlamaan waa kala soo doortaa in la soo doortay ma jirto madaxweynaha lama soo dooran xildhibaanada ku sheeganaya lama soo dooran rag intii meel lagu xareeyay la yidhi intiina doorta doorasho ma aha marka anaku taawan horan uga gudubnay hase ahaatee waxa lala yaabaa weeyaan iyagoo toodii waxaa la yidhi kii dantiisa kii tiisa daryeeli waayey ayaa tu kale inuu uga taagaa meesha ma wanaagsana marka waxaanu leenahay haddaanu nahay Soomaaliya waanu u nahaynaa xitaa hadday yidhaahdaan kaalinu la dejiyo waanu u imanaynaa waanu la dejinaynaa magaalada iyo dalkii laakiin waxaana ku hadlayaan iyo waa iska hadal bila macnaha waa si wanaagsan waa hagaag xuseen waxa aad ka mid ahayd xildhibaanadii dalka Soomaaliya mar waqtiga ka mid ahaa fuudi la socotay xukuumadda matalaysay ee wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ku jirta aad ka mid ahayd wada hadalkii haatan wax kama soo naasacada sida ay bulshada indhahooga ay ku arkayaan oo waa runtii waxa ay u eg tahayba in wada hadalkii hawada ka baxay oo aan labadii dalba imika ayna wax interest ka dhaxayn arrintaasi miyaan la oran karin waqti lumis bay ahayd oo runtii in wada hadalka la bilaabo hadaan la dhameystir ahayn ay runtii noqonaysa hadda sideed u aragtaa adigu baarlamaan ahaan iyo adigoo matalaya baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliland ba Soomaaliya iyo Somaliland horta dimuqraadiyadu waxa weeye cid kasta aan la hadashin Soomaaliyana waxba ay naga dhaxeeya wax badan bay naga dhaxeeya wax badan naga dhaxeeya waad ogtahay inakoo shaararkii aynu gashanayn ka nimi garmadii oo qura xidhan baanu ka nimi Soomaaliya marka bal qiyaas waxa nagaga maqan waxa wixii aanu lahayn adduun baa nagaga maqan guryaha iyaga baa nagaga maqan oo inta la iskaga jiro aan waxba ka ogeyn ama aan haddaan tagno aan la siinaynin Soomaaliya meesha la yidhaahdo arrinkeedu kaas weeyaan muxuu ahaa anaku waran oo mar baan anigu raacay 7 aanu ahayn waxa markiiba ku muuqanaysa in mowqafka arrinta meesha aan u tagnay iyana ay yimaadeen waxay ahayd Soomaaliya iyo Somaliland in isla meel dhigto go'aanka Soomaaliya runta marka la sheego haddii iyagu ay isla soo joogaan go'ay maysa laakiin waxa wada hadlayna waa la hadli lahayn annaku se waxa bay yidhaahdeen arrinta Soomaaliya iyo Somaliland kala gooyay isku oolaadkeeda maba ka hadlayna annaku bay yidhaahdeen halkaas ay ku gooyeen anna waxaan nidhi hadda maxaa lagu wada hadlayaa waxa ka kacay markii hore qoladii la soo dhaweysay ahayd dalkooda aan ku shireenay
turkiga ahayd ayaa tidhi bal isku noqdo wuxuuno marka calaa kulli xaal 2 casho waxaanu ka shiraynay oo aakhirkii aanu ku heshiinay in hawada sare bal waxa hawada sare waxa mala almiino inaanu ka wada hadallo waanu ka wada hadalay waanu ku heshiinay sisba meel isla dhignay waxaanu meel isla dhignay in hawada sare aanu qaybsano in isku xafiis ay ahaato in xafiiska Hargeysa laga dhigo oo ay cid soo dirsanayno kuna cid aanu dirsano heshiiskaas 7doodii iyo 7doodii waa saxiixnay markii aanu kusoo noqonay xama Hargeysa xukuumadii iyo nimankii aanu la heshiinay waa diideen marka anaku markii dambe waa shirno waxaanu war nimanka inta heshiiska yar diiday niyo heshiis kale oo ay saxiixaan la rumaysanaya maya marka waxaan kula talinay xukuumadda inaan dib nimanka loola hadal oo loo tegin oo waxba la odhanin oo lala shirin hase haatee dee waa un adigu adduunkii baa yidhi shir oo wada hadla iminkana ima muuqato ilaa ay waaqaca yimaado oo runtii laga wada hadlo waxaa ka wada hadli mayna af Soomaali maaha wax walba in laga wada hadlaa ama qalad ama macaanaadee haddii kale shirkaasu ama in nimanka in lala hadlo ama la shiro meesha ma taalo waxay u ekaan niman aan isku kalsoonayn oo kolba telefoon cararayo meel kale u dhuumanayo cid telefoon u diraya waxay u ekaan nimanka ugu afxun noo soo dirayo kolba hadalka ku sii diinaya deena sabiradu waa iska caynka marka anaku 3 shil markaan meesha joogno waa iska galin waxaan waraale ahaada وهاج مركز هشيسكاسي مهر جلي أو إلا إمك مشقية أو حفيظ ما كله مجالده هرجيسين يقول صومالي ما كله ده صومالي ما كله ده حفيظ أو دكلا سا هو السرسة ما لوكلا قاطع إمك مسووليك حكم مشقة هشيسكا مشقين يقولوا ده صومالي لا صوماليا وادي دي في شخص بتشرب بي لهدين وأنا عادة كونفرنس كان هذا ما بلش كوها لين كران بتانغ أو ده يصدق سنة شو wax la isku hadlayn karo ma aha mana aan arinta ayada in halkii ku baabaaday wax alla wax ka soo roonaysan iyagina isteejiyaan kale in isteejiyo imka wali Nairobi waa laga maamulaa mala iyaga waxba loo tuuraayo xagga Soomaaliland waxba looma tuuro hagaag imiga sida kale aan la socono bilihii ugu dambeeyay waxa dalka Sweden gaar ahaan caasimadda laga ankay safaarad ay Soomaaliland ku yeelan doonto dalkaasi oo xataa madaxdii muxaafid iyo mucaarad bay ka soo qayb galeen iyadoo ay ka jirtay markii hore safaarad ay ku leedahay dalka Soomaaliya ay Sweden ku lahayd miyaana loo oran karin markaas dalka Sweden amba dalalkaasi midowga Yurub waxa haatan ay u muuqataa in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala saarayaan mar haddii ogol yihiin bayna safaarada ku yeeshaan dalalkoodii iyagoo markii hore ka jiray safaaradii dalka Soomaaliya adduunku Soomaaliland aad iyo aad u ogol yahay cidina diidan alla turkiga oo jecel inaan la kala goyn mooyaane cidina diidan horta ma jirto maaha Sweden oo qura Ingiriiska xitaa wakiil bin ku leenahay halkanna waynu ku leenahay iminka aynu joognay Canada marka waxaan rabnaa inuu kaalad ka baxno embassy yeelano taasna waxay ku xidhan tahay iyadoo dee lagu ixtiraafo marka wala inuu ogol yahay waa insha Allah waqtigu ay dhici doonto in la ixtiraafo bay ku xidhan tahay mooyaane aad iyo aad bal inuu ogol yahay waxa timoodaa inaynu xoogaa ka gaabinayno sidii loo rabay inaan u socono inuu raadin ixtiraafka وهاج وسورسن سida dalalka deeqbixiyaasha iyo dalalka runtii ay Soomaaliland waa ahad jeer ka doonto qadiyadeeda iyo horumarka dalkaba waxa haatan ay ku dalacaanayaan in runtii aqoonsaday noqoto iyo horumar kaleba ay iyagu dib u dhigaan maadaama doorashadii ayna muddooyinka ugu dambeeyay waqtiyadooda ku dhicin marka mal oran kara arintaasi arqalad ay ku noqon kartaa in Soomaaliland ay aqoonsi beesha caalamka hesho arqaladu ku noqon kartaa mid aad u weyn bay ku noqon kartaa Somaliland iyo meesha la yiraahdo maxay adduunka caalamka adduunku waxa aad iyo aad bay u wada socdeen markii hore xitaa baarlamaanka Ingiriiska 350 miya talo xildhibaan oo la leeyin jiray oo Ingiriisa oo anagu dhowr jeer aan ugu tagnay haddaan nahay golaha wakiilada oo dee dhawaa counterpart yagiye aad iyo aad bay loogu helanaayeen waxaad arrintu ay ahayd aynu qaadanay waxa la yidhaha road mapka dimuqraadiyadda wuxuu ahaa idina inama hagin
laakiin inaga sheegaynay ummadaha kale adduunkuna inta badan wayna caawinayeen qaar baaba xisaaba intay inoo fureen 4 dal baa aan u malaynayaa macaawanadooda toos lagu soo diri jiray oo aan caalamka sidaas ka yaala dhicin oo loo mareeyay shabcada qurmaha iyo wax aynkaasa oo intay soo feentaan wax yar oo laflayn ka soo haro lagu dhiibi jiray marka halkii road markii leenaga filayay inaynu marno oo ay gaar ahaan ka mid tahay doorashooyinka oo ay iyagu kharashka bixiyeen oo si wanaagsan oo xaqiiqada ay inoogu martigeliyeen wixii aan xaggaana mar dhowr jeer ugu tagnay dabeeto inaku wadadii dimuqraadiyadda ahayd waxaad moodeen ka yara weecanay maxaabiis xabsiga aynu ka buuxinay kuwii nimankii jaraa'idka ahaa xitaa xildhibaanadii golaha qaar la xidhay marmar marka dee waxaa u muuqatay nimankii la odhan jiray shisheeyaha ahaa in dimuqraadiyaddii ay doonayeen inay la meelmariyaan meeshii ay uga muuqan weyday sidaa la ajligeed dimuqraadiyaddii dee cagahay ku qaadatay iyo muxuu ahaa ictiraafkii waa hagaag waa si wanaagsan markaan eegno iminka doorashadii somalilan waxaa ka hadhay qadar gudahood ah oo 4 bilood ku dhawaada markaas hadiga ahaan amba xildhibaan ahaan ma aaminsan tahay in doorashadaasi waktigeedii ay xukuumadda ku qaban karto adigoo u dhun daloola xukuumadda iyo si wax u socdaan carqalado kale iyo sheeko kale haddaan la keenin doorashadii waktiga ay way ku qabsoomi kartaa nafsi bay haysataa hawsha badan wixii hawlaha waba la soo dhameeyayba waxa qudhay hortaagnaa waxay ahayd uun diiwaangelintiina dee waa aragtaa 2 gobol waa la dhameeyay 4 gobol bacda Ramadaan bay bilaabayaan wax allaalay wax dawlad wax lagu la odhan karo waa ka qabiyo ma jirto waxaa jira waxa la yidhaahaa marmar haddana dib inuu dhacda laga yaabaa laakiin haddii dib u dhac yimaado waa dib u dhac loo badheeray oo xumaan iyo qas lagu wado waayo sababtoo ah madaxweynuhu inay dib u dhacdo ma ogola xusbiga maxaafidkii inuu dib u dhacdo ma ogola commissionka doorashooyinku dib inuu dhacdo ma ogola waana diyaar xusbiga wadani waa diyaar mana ogola dib u dhacdo xusbiga ucid ma ogola dib u dhacdo marka dii wixii kala yimaadaaba waa wax un loo badheerado maaragtay badheerahoo dee qas iyo dagaal iyo beriya baas alla inaguma keenay insha allah marka doorashadii way dhacaysaa 85% 90% way dhacaysaa early November 2017 insha allah waa hagaag waa si wanaagsan haddaan xuseeno kaa weydiiyo su-aal ku salaysan dhinaca xildhibaanada sida aynu la soconno xildhibaanada baarlamaanka somalilan waxa ay ka awood badnaayeen badhigii dowladdii xukuumaddii riyaale xukuumaddan iminka madaxweyne siraayin galowdeen ka yahay sababta maxaad keenaad odhan kartaa ay uga awood bateen beriga iminkan aan awood lahayn wallahi berigaana mucaarad baan ahay iminkana mucaarad baan ahay waxaa jirta waxaad moodaa in siyaasadda maanta taalla mucaaradkii aysan ahayn malaha ka daaya halkii mucaaradkii hore wax ka miisi jiray oo dagaal iyo gacan iyo kahadal iyo afka hadal aada u khariban iyo lahaa marka tan waxaa laysla gartay in af macaan oo aan waxba inaga baaqi noqon hadalkeenii iyo siyaasadeenii iyo dowlad kasoo horjeedkeedii lagu dhaqmo marka dadku sida uu doonayaa waa taas kicinta ee buuqa iyo keylada ah waxaanu aragnay haddaanu nahay matalan xusbiga wadani in madaxweynuhu uu diyaar u yahay wax alla wixii wanaagsanba khayr allah siiye wax dhibaataana aanu dalka u geysan laakiin malaa aanu si wanaagsan u caafimaad qabin marka wadankii waxa qasaya un dad aan la dooran oo meesha jooga magacyo badanna waa loogu yeelaa ama guurtada aan garka lahayn la yidhah wax kale hala yidhaahdee kuwaasaana gacanta ku hayo jarka tuuray insha allah waana ka rideennaa annakuna waa la daba taaganahay meel wanaagsanna way maraysaa insha allah iminka
waagag marka xuseen oo adigoo ka mid ah horta xisbiga mucaaridka ee wadani ahna xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland arrinta aad sheegayso ma oran kartaa in aan Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan iyo waqti xaadirkan aanu dalkaba maamulin oo aan war uga hayn waxa ka socda balse sida aad tilmaamtay niman kale iyo dad kale oo xukuumadda ka mid ah ay haatan garwadeen ka yihiin xukuumadda sida ma la oran karaa iminka runtii haddaan kuu sheego waxaan kuugu maahmaahayaa mahma aan wanaagsanayn geela waxaa la yidhi marka ilmuhu ka dhinto maqaar baa loo bixiya maqaarkaasaa lagu maalaa madaxweynaheena maanta waxaan u malaynaya xusuusta inay ka luntay marka runtu sidaa sheegtay weeyaane waxaa wadankii waxaa xukuma sidaan ku sheegay dad aan lala dooran wanaageedana dan ka lahayn oo malaa doonayo intaa kolba inay bilo kordhisaan bilahaana dee hashaa maalaan haddii alla ka dhigo wahagaag waa si wanaagsan mar haddii ay saa tahay waxaa la odhan karaa dalka haatan badbaada ayuu u baahan yahay markaa baarlamaan ahaan ma samayn kartaan impeachment aad madaxweynaha haatan xilka kaga qaadi kartaan aad odhan kartaan madaxweynaha caafimaadkiisu ma wanaagsana dalkiina gacanta kuma hayo cid kale gacanta ugu jirtaa markaa impeachment ma samayn kartaan baarlamaanku madaxweynaha dastuurkii horta iminka ma hayo iguma horyaala laakiin sanadka u horeeya sanadka u dambeeya lama impeach garayn karo ayay ahayd baan umalaynayaa marka madaxweynuhuna I think maanta uma qalmo iyo mar kale toonna in la impeach gareeyo sababtoo ah markii hore mucaarad baan wada ahayn oo nin aad u shaqeeyo kulul buu ahaa iminkana haddii dee ay caafimaadkiisa wax ka dhilmeen dembiga isagu ma laha waktigu sanadkii u dambeeyana waanu ku jiray iminka weli bilaaba ka hadhay marka impeachmentka laftiisii dee wuxuu doonayaa majority wanaagsan buu doonayaa baarlamaanka ah kaa qudhiisu waxa way yara adag tahay sababtoo ah baarlamaanka inkastoo badankiisu wanaagsan yahay rag baa jira haddii wax loo lolo markiiba kaa wareegaya allah iska daaya insha allah ilahay way soo hanuunin doonaaye marka ma intaas naguma usoo dhicin waxaan ninka odayga madaxweynihii uma qalmo impeachment baana nagu leedahay oo keliya waa si wanaagsan haddaan xuseen usoo noqdo su-aashada ugu dambaysa runtii maadaama baarlamaankii iyo xukuumaddii haatan ayna wada shaqayn lahayn waxaa haatan jirta in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka aqalka baarlamaanka Soomaaliland waqti xaadirkan weli mu cayimin waqtigii uu ka tagaayo jagada baarlamaanka uu banaynayo ee uu noqonayo musharaxa xisbiga wadani ma oran kartaa weli waxa weeyaan Cabdiraxmaan Ciro diyaar ma aha inuu madaxweynaha haatan ka noqdo dalka maadaama weli uu baarlamaankii uu sii jiitamayo hayo gacanta ku hayo horta wax lala yaaba weeye dhowr meelood ka maqmaqlay Cabdiraxmaan ma sharaxna Cabdiraxmaan waa sharaxan yahay waana u diyaar haddii maanta imtixaan la galo doorashada oo heerana diyaar buu yahay waxaase inaad jirto waxbaa la iska riixanayaa wax daba dhigay guddoomiyaha garan Cabdiraxmaan dadka daba dhigay ama dowladda daba dhigay garan maayo dastuurkoodu wuxuu sheegay shuruucdana waxay sheegaysaa waqtiga laga tagayo baarlamaanka iyo waqtiga la soo sharaxay madaxweynaha iyo intuu waqti haysto iyo goorta aan la dhaafi karin marka dadka kan odhanaya muxuu ka tagi waayay hadduu door muxuu ka tagay waqtigiisa ma soo gelin laba bilood meelaha baan u malaynaya inay ahayd inuu before the time inuu ka tago dee labadii bilood bishan ku jiray waxa weeyaan soomaaha imanka June mayno gal may ku jiraa may soomaaha marka waxa haray dee 5 bilood iyo siyaada haray marka dee annaka buu kula talinay waqtiga iska dhamayso dalkana hawshaada haysay u qabo annagu haddaan wadanahay waxaanu nahay dee dawlad iska dhisan baanu nahay ma xukumo guddoomiyuhu xusbiga wuxuu leeyahay structure buu leeyahay dee dowladnimo oo kala ah isagu waa figurehead madaxweyne oo keliya ah waa la wadi karaa xusbigii baahi badan loo qabaa ma jirto xusbigii inuu hawl ka qabta marka dadka odhanaya waqtiga xusbiga waa inuu waqti siiyaa hadda waa dadan shaqaba ku lahayn inuu doonayo xisbigii inay jabiyaan marka wuxuu haddii alla ka dhigo ka tegi doona marka waqtiga soo dhawaado ma aha necessary in maalinta u dambaysa uu ka tagay sharcigu ogol yahay laakiin dhaqso inuu uga tago iska suuragal
وهاجاج واسوناكسن haddaan xuseen u soo noqono adiga fikir ahaan sidaad aaminsan tahay maxaad u malayn kartaa doorashada waqtiga haatan aan wax badan ka hadhin food inagu soo haysa 2017 ka dhici doonta Soomaaliland xisbiga mucaaradka ah ee aad adigu ku mid tahay ma u malayn kartaa inay ku guuleysan karaan saadaal inta leeg ba qabtaa doorashadaasi aad saadayn kartaan inay ku guuleysan kartaan hanaanka dalka bila ka hor waxaan jaaniskan haystay wuxuu ahaa 50% inaanu helayno maanta waxaan qabaa 85% inaanu helayno waayo gobolada aynu ka koobanahay oo 12 laakiin 6 sharcigoodu yahay siday u badan yihiin ama yihiinba waxay support garanayaan wadani waxa la isku support garanayaan waxa kamid waxa weeye borogramka aanu dhigan wax kulmi wuxuu ku leeyahay borogram ba may dhigan borogramku inay soo dhigtaan bay ahayd warba ma hayaan borogram baanu dhiganay shirweynaanu ku qabanay waana soo dhignay bogigo dhaban hagaajinay wixii lagu geliyay baanu soo sameynay imikana uu furan yahay wixii lagu daray wixii laga saaray waa furan yahay marka wadani waxay u eg tahay ilaah baa horta wax bixiya waxna diida laakiin we are much ahead of kulmiye qorada kalena dee warkooda waa dhaaf وهاجاج واسوناكسن gabagabadii guraanadkii Xuseen oo dad fara badan oo reer Soomaaliland oo degan Canada gaar ahaan Ottawa ayaa toos ku dhageysanaya dadkaasi maxaa aad kaga tagi lahayd dadka reer Ottawa isku nahay walaalahaya waxaan kaga tagayaa wadankii uu idin baahan yahay wadankii doorashada hadeemka waxa idinku weeraraya ninkii iman karaya yimaado shaqooyin badan baa yaala dabcan haddii aan isriifta gareynin ma cod gareyn kartaan laakiin waxaa ku hubsan kartaan doorashada si wanaagsan u dhacdo musuqmaasuq aanay lahayn inaad timaadaan oo dadkiina kan ilbaxa ee qurbaha jooga aqoonta leh nagala qayb gashaan oo nala caawisaan oo nala eegtaan oo sanaaduuqdoo kale iyo meelaha lagu tirinaya iyo meelaha lagu codeynaya iyo nagala qayb gashaan oo nala eegtaan oo noo ilaalisaan haddaanu nahay xukuumadda iyo haddaanu nahay saddexda xusbiba waxaan se idin leedahay haddii aanan gudaha markaan joogno hadalla kulkulul isku tuurno waa uun shaqada caynka ahe wax xumaano naga dhexeeya ma jirto Soomaaliland dadku waa walaalo habeenkiina meel baan ku dhacshaynaa subaxiina waa saasaanu isu maagnaado wax isu nidhaahnaa waxaan se ku hanweynahay inaanan sidii halkii mucaaradiyadii hore ay dowladihii ee ka soo jeeday kureylkii ay ku hayeen kayagu ka saaray oo ka qabow yahay hase ahaatee wixii jira ciidamo dafir weyse waana la sheegayaa dalkii baan idinku sugaynaa noo kaalada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آذي بان كاغا محد إلينا سوى واكسن أيضا نوغا أجيبتو حليل كان كلو سؤال حسين وانا كاغا محد إلينا مركلة إن شاء الله إنت مقالة تكتو أن وريسيات توسكا قادي دون